dameer dibadeed keligii safraya. Wuu sugayaa inuu cuno tambarkii oo cawsa. 3 cisho ayuu safrayaa isagoo aan biyo cabbin. Wuxuu socdaalayaa isagoo oo aan ka fikirin khatarta ku xeeran. Sida bisadaha kale ayuu u soo haajiray saxarahan dameer dibadeedkani qaxoonti ahaan. Dhulkan uu marayaa waa mid qallalan oo siiga badan leh. Haddii uu ku soo baxo galgelin, wuxuu ka dhigtaa meel uu isagu leeyahay oo uu ku baashaalo. Wuxuu sugayay bilo inuu arko soo booqdayaal cusub oo dhadiga. Haddii ay jeclaadaan ama ay ka helaan dhulkan uu ku nool yahay, waxa laga yaabaa inay la sii joogaan muddo. Wuxuu helay jaaniskii ugu horreeyay ee uu kula midoobo xayndhigiisa. Wuxuu sameeyey guul uu dhib badan ka soo maray. Waxa laga yaabaa in soo booqdayaashu ay daydayayeen lamaanayaal intan ka badan. Waxa dhacay dib u dhac kale oo aanu xisaabtaba ku darsan. Waxa dhadiga la socda lab yaryar oo dhibaato badan oo ku kakan lab kasta oo doonaya inuu la midoobo xayntan dhadiga ah. Hadda waxa la gaadhay xilligii uu labka ka sooci lahaa dhadiga. Dagaal baanu diyaar u yahay. Dhammaantood wuu caydhiyey labkii. Dhadigiina waxa ay ka daawanayaan sheedda waxa ka socda. Waxaana la yaab ku noqotay awoodda aanay ogeyn ee uu la yimid dameerkan qariibka ahi. Hadda waxa uu soo dhaqaaqay inuu hubiyo raalli ahaanshaha dhadiga isagoo adeegsanaya xaylin iyo salaax. Halkan marka aad joogto waa inaad ka faa'iidaysataa fursad kasta oo ku soo marta. Ha ahaato cunto, biyo iyo weheshiga dhadiga. Gashaantimahan dhadiga ihi waa xayn isku duuban, waxaanay go'aan ku gaadheen in ay guuraan dhammaantood. Waxaa laga yaabaa aragtidooda ama muuqooda inaynaan dib u arag. Tanina waxa ay jaanis siisay dameer dibadeedkii qariibka ahaa inuu dhabarka ku qaado mas'uuliyadda xayntan uu garwadeenka ka yahay.